It will now be possible for our content creators to transact using the M-Pesa platform, which is a much more easy, accessible, and a space where many Kenyans interact. codkaas aad maqlaysaan saaxiib waa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka qayb galay xaflad ay qabanayso shirkadda Meta taas oo ku qabanayso wadanka Kenya oo ay lacagta monetization-ka u furtay. Facebook monetization ama qaabka Facebook lacag loogu sameeyo marka hore Afrika waxaan u maleynaa wadamada la way koobnaayeen waxaa lahaa kaliya wadanka Egypt wadanka South Africa waliba qaasatan inta badan waxaa si caadi ah loogu shaqeysan jiray wadanka South Africa marka Afrika la joogo haata saaxiibayaal waxaan monetization-ka loo sii daayay ama waxaa 3 bilood kadib bisha June monetization-ka loo sii dayn doona wadanka Kenya taasoo dhalinyarteena Soomaaliyeed ay aad ugu macaash doonaan insha Allah saaxiibayaal soo dhawaada channelka daawanaysa waa Nunu Academy saaxiibayaal waxaan ku soo gudbinaa waxyaabo fara badan aynu ka hadlin teknolojiyada si guud si khaas ah Facebook electric Facebook sidoo kale muuqaal sameynta barashada website iyo wax walba teknolojiyada ku saabsan fadlan hadii ay tahay markaa koowaad muuqaalka like sar sidoo kale channelka subscribe sar si aynu gaarno 10,000 oo subscriber saaxiibayaal maanta waxaan rabaa muuqaalkeena inaan ku soo koobo wadanka Kenya oo lacagtii ama monetization-ka loo furay iyo qaabka ay Soomaalida ugu faa'iideysan karaan saaxiibayaal saynu ognahay Facebook monetization-ka wuxuu caqabad si guud Soomaalida haysata si qaas ah dhalinyarada Facebook ka shaqeysata maadaama ay adeegsan jireen server ama maadaama ay u ahaan jiray ama uu wadan qof kala joogo ama saaxiibkood ama familkooda kamid ah oo Facebook password-kooda ay u dhiibi jireen xagaana ay MSA muuqaalada ka soo gelin jireen taasoo caqabad ku noqotay marka runta laga hadlo oo dhamaanteen caqabadaas wayna wada haysata laakiin waxaan u filayaa hadda marka wadanka Kenya loo furo lacagta in caqabadaasi 100% aan dhaho ay xalismayso maxaa yeelay qof kasta oo inaga mid ah wuxuu ehel iyo saaxiib iyo qof u dhow uu ku leeyahay wadanka Kenya taasoo ka saaciid doonto inuu helo address oo xawaay oo verification-ka ama uu ku xirto inuu lacag ka sameeyo saaxiibayaal hadii qof waalidkaaga ama saaxiibkaaga Kenya joogo waa fududahay because Facebook buu ku sameeynaa Facebook markuu ku sameeyana Facebook page-ka uu ka sadex sameynaya ama profile ha noqdo ama Facebook caadi ha noqdo markaas waxa ku fududaanaysa in si fudud lacag ugu sameyso hadii aad shuruudi gaarto waxa is weydiinaysaa waa maxay shuruuda mar badan ayaan ka hadlay Facebook shuruudiisa lagaga baahan yahay inta badan waxa lagaga baahan yahay 5,000 oo Facebook followers ama friends ama dad ku soo follow gareeyay sidoo kale saaxiibayaal waxa lagaga baahan yahay waxa loo yaqaano 60,000 watch hour 60,000 oo booqasho inay ku daawato 3 bilood ee ugu dambeysay yani shuruudaha marka loo fiiriyo Facebook dhanka YouTube-ka Facebook uu fududeeyay maadaama ay dad far badan isticmaalaan oo asxaab far badan iska macnaha si maal yani ama waqtigooda isaga lumiyaan si aad follow u heshid iyo si macnaha aad u heshid sidoo kale watch hour way iska foodaa marka la joogo Facebook laakiin YouTube-ka ayaa dhib badan marka labadaas isku fiiriyo shuruudaha saaxiibo badan oo WhatsApp-ka igala soo xiriiray mar hore ayay gaareen laakiin caqabad waxay ka ahayd halka ay lacagta kaga xir lahaayeen ama address-ka fiican ay ka heli lahaayeen maadaama Afrika uusan u shaqeynaynin waxa loo yaqaan Facebook monetization laakiin saaxiibayaal marka wadanka Kenya la monetize gareeyo waliba lacagta wax sida la sheegay waxay ku soo dhici doontaa M-Pesa يعني payment method ama gateway uu isticmaalo wadanka Kenya taasoo sahlaysa marka in lacagtaada xitaa maarad si fudud oo aad iyo aad u fudud transaction aan kugu soo gaarto adigoon maadaama u baahneen bangiyo caalami ah ama kaarar caalami ah u baahneen in lacagtaada M-Pesa ay kugu soo dhici doonto qofka saaxiibkaaga ama wadanka Kenya ku joogan oo si tartiib ah intuu lacag soo bixiyo EFC Plus iyo waxyaabaha isticmaasha zaad iyo wax walba dahabshiil wax walba noqdo kugu soo diri doono marka saaxiibayaal waxaan isleeyahay halkaas waxa inaga soo aaday ama waxa inooga timid fursad aad iyo aad u ballaaran aniga waxaan ku dhiirigelinayaa marka qof walba oo horey u lahaa goormeen bilaaba Facebook goormeen lacag ka sameeyaa waqtiga kugu haboon saaxiibayaal ee lacag ka sameyn lahayd Facebook waa hadda saaxiibayaal sida la socoteen dhalinyarteena Facebook page-ka shuruudiye gaaray ama macnaha buuxiyay kaalmiye looga baahna wax walba shardi looga baahna la imaaday waxa jira caqabad soo aad iyo aad u foosartay labada caqabad ee ugu darna waxay ahaayeen waxa loo yaqaan ineligible country ama inaad degan tahay wadan aan la aqbali karin sidoo kale caqabada aydan aadka loo xalin waayay waxa ahayd waxa loo yaqaan Facebook monetization policy يعني inaad ku xadgudubtay qaabkii lacagta loogu sameyn lahaa Facebook labadaas caqabad waliba mid eligible country-ga fududba maxaa yeelay hadii aad wadan kale qof u joogo aad u dhiibto Facebook waa lagu sii jiray laakiin monetization policy-ga dhib caqabada keenayso waxa ay inta badan qofkii Afrika joogo inuu maago inuu Facebook xagan ka soo geliyo waxa ay muuqaal taas oo shirkadda Facebook maadaama hadda inta badan waxa ay isticmaalaan AI ay tahay ay soo qabanaysa markaa detect ay ku sameeynaysa in macnaha qofka Afrika joogo uu soo gelinayo muuqaalada taas oo caqabad keenaysa oo ah shardi in aan lacag laga sameyn karin Facebook-gaas laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa marka Facebook Kenya loo monetize gareeyo oo bisha June la gaaro in ay noqon doonto wax dhamaanteena wada anfaco dhamaanteen si fudud oo aad iyo aad u fudud lacag loogu sameyn doono maadaama
dadka content creator-ka ama dadka YouTube kale ama dadka Facebook kale dhalinyarada ee aad iyo aad u soo badanayaan xitaa qaarka aan lahayn waxay sameeyaan muuqaaladii dhalinyarada kale ay sameeyaan ay dib waxa way ay reorganized ama u sameeyaan taas oo macnaha marka qaar ay copyright free ka yihiin dhalinyarada muuqaalada soo geliso waxaa jira qaar copyright ku xirta iyo qaar aan copyright ku xirin taasoo naftirkeeda caqabada marka ani xitaa waxaan soo jeedin lahaa warniyow dhalinyarada si ay lacag si fudud ugu sameeyaan muuqaalada aad sameynaysan copyright-ka ka daaya si waxa way walaalahiinaas dambe ay jeclaayeen in muuqaaladiina meel dheer gaarsiiyaan ay lacag ugu helaan dadka raba inay muuqaalada la sameeyay ayagana tafaatiraan oo wax ku daraan waxaan ka codsan lahaa in muuqaalada ay dib u dhigreeyaan oo wax macna value ama wax qiimo leh ay ku darsadaan si muuqaalkii qofkii hore sameeyay uu u noqdo muuqaal wax laga bedelay oo waxa waaye muhiimad gaar ah leh insha Allah ta'ala marka saxbal waxa rabay maanta inaan kula wadaago in wadanka Kenya lacagta loo furay qof walba inaga inamid ah oo si yar oo fudud lacag ugu sameyn karo shuruudina waa aniga idin sheegay waa 60,000 oo watch hour inaad gaarto 3 bil ay ugu dambeysay taasoo macnaha qofkii muuqaal fiican la yimaado durba ku gaari karo sidoo kale waa 5,000 oo followers shuruudaha marka hore waad kaan jireen waxay ahaan jireen 600,000 iyo waxay kale ahaan jireen 10,000 oo followers taasoo ku cadeynaysa marka adduunka hadda in loo soo jeesan doono in lacagaha aaladaha social media laga sameeyo maadaama shardi kasta la dhimay adiga maalin kasta inaad muuqaal daawato oo waa aad dhahdid halkan aad soo taagnayd waa lagaga fiican yahay maanta Facebook sameyso qof Kenya jooga ku soo sameeyo shuruudina gaarto ku dadaal shuruudda markaa buuxisana 3 bil ee ka dhiman waliba chance haysta 3 bil hadaad maanta bilowdo waxaan hubaa 3 bil dadka ugu horeeya ee wadanka Kenya lacagta ka sameeyaan noqon karto saaxiibayaal marka ku talagal maanta inaad Facebook page furto oo waxa way wadanka Kenya lagaga sameeyo shuruudani aad si sahal ah ku gaarto insha Allah ta'ala marka fadlan hadii la dhamaad kana soo gaartay channelka subscribe channelka waa channelkaaga saaxiibayaal inaad soo booqato subscribe laaba hadii fadlan waxaan ku soconaa wadada aan ku gaarin 10,000 waxaan oo dhiman dadka yar 500 qof fadlan aan ka codsado marka la channelka subscribe sarto muuqaalkana like siiso waa inuu muuqaalkani muuqaalka xiga